Let me tell you one sad story. waxaan idin sheegayaa sheeko murugo badan. The whole Somalia. Soomaaliya guud ahaan waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika, taasi oo qani ku ah kheyraadka kalluunka. Huge fish resource. Ethiopia has one of the shacab tiro badan oo Ethiopiana ayaa kalluunka isticmaala xilliga soonka, laakiin Vietnam ayaan ka soo dhoofsanaa. We import fish from Vietnam. kalluunka Vietnam iyo Norway ayaa laga keenaa. You know where that fish comes? ma taqaanaa meesha kalluunkaasi asal ahaan uu ka yimaado? Vietnam waxay kalluunka ka gurataa biyaha Soomaaliya. The trade between us and Kenya is ganacsiga nagala dhaxeeya Kenya waa 8 milyan oo dollar oo kaliya. ma aaminaysaa sida uu aadka ugu yar yahay? First, we restore peace. kow waxaa loo baahan yahay in aan nabad dhalino, waa in aan ka shaqayno iskaashi dhaqaale, taasi la'aanteed nabad waarta la heli maayo. Definitely the Somali Afar conflict. sida ugu fiican ayaan uga howlgalaynaa isku dhacyada Anfarta iyo Soomaalida. haddii aan ku guuldareysano ceeb ayaa inagu tahay. If it recurs, it's shame on us. The Somali regional affairs. arrimaha ku saabsan deegaanka Soomaalida waxaana saaran in la helo doorasho xor ah oo Ethiopia oo dhan ka dhacda. My advice to our Somali brothers. walaalahay Soomaalida waxaan kula talinayaa arrimihiina gudaha ha kala tashanina Oromo. Don't take it to anywhere. meelnaba ha u qaadina. Somali unity. midnimada Soomaalidu dhexdooda ayaa ay taallaa. annagu walaalihiin baan nahay. We are your brothers. laakiin arrimihiina guduhu nama khusayaan. waxaan idinkula talinayaa dharkiina wasakhda ah ha ku dhaqina meel deegaankiina ka baxsan. But my advice, do not wash your dirty laundry outside Somali region. Sit together. Sit together. taasi ayaan kula talinayaa oo NLF Mustafa iyo cid walba. Mustafa to everyone.